السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم داود الميل وباجوكتاني سوى بمقالك عن داونيسان كسو دودا عشان كيني توني سدحات لكو سابسوني كورس كيني كمبيوترات اكاونتينكا او اني كبريني سوفت وير كيني بيشتري ان شاء الله ما انت عشان كينو حاكلينا هي هل وجود كواد محتاج بين اكسبيسيس سيبا وبحنينا خرشات كينا بس انت وجود من عشان كيني كسو دودا المقال كينا وهرين waxaa muhiim ah inaad ogaatid waxa laga wado expenses waxaa loo yaqaanaa qarashaadka ka ay company u galay tusaalahan company-gana wuxuu iska dhigay ijaarka lagu lahaa iska dhigay tusaalahan company-gana wuxuu dhigay mushaarka shaqaale u dhigay company-gana wuxuu dhigay korontada lacagta lagu lahaa qarashaadkaasi raka ah company galay waxaa loo yaqaanaa expenses sidaas daraadeed expenses waxay kugu doonaan revenue-gaaga kugu doonaan okay expenses waxay kugu doonaan revenue-gaaga kugu doonaan kadib markii laga soo jaro cost of goods sold wixii soo haraa laga soo jiri doonaa expenses marka sidaas weeyaan expense waxaan rajeynayaa inaad fahanteen markii aad bixinaysid expense la wada loo bixiyaa wadada kood waxay tahay in hal account expense aad sameyso dhammaan wixii la bixin aad ku bixiso okay koronto mushaar internet lacagtiis wax dhan inaad halkaas account aad ku bixiso mid kale waxay tahay inaad mid walba account gooni u sameyso tusaale account-kan waa account expense oo korontada account-kan waa account grid akoonkan waa akoonkii hebelo expense akoonkan waa saas inaa usii wado taasaana fiican maxaa yeelay haddii hal expense akoon aad samayso wax inaad ku shubto waxaa ogaanaysaa total expense aad ogaanaysaa okay meelaha kaaga kala baxeen dhan ma fahmaysid kambaniyan waxaa rabnaa markii sanadka dhammaan waxaa rabnaa kirada inta nooga baxda inaan ogaano internet lacagtaa ku isticmaal inaan ogaanaa rabnaa mushaarkiina shaqaalaha sanadka intaa dhiibnaa rabnaa marka taasna waa kuu muhiim inaad ogaato okay marka waxaan kugula tali lahaa akoon walba inaad samaysto expense u samaysto marka hore intaanan bixin expense waxaa waajib inuu akoonada expense ay ku samaysan markaas kadib ayaa bixin doontaa insha allah bal marka hore aan sameyno akoonadayna expense-ga anaga oo tegayna halkay qoran tahay b3geena markaa tagno waxaan kasii dooran doonaa halkay qoran tahay maintain kadib waxaa kasii dooran doonaa chart of accounts waxaa rabnaa inaan account expense soo sameyno okay inta account-kan waxaa gelinaysaa id-giisa waxaa rabtaa gelinaysaa okay account description waxaa gelinaysaa magaca waxaa sameynaysid tusaalahan anaga waxaa iska leenahay korontada kaleetood okay waxaa leenahay tusaalahan qarashaadka korontada ama koronto expense account type waxaa waajib ah inaan ka dhigto expense inaan ka dhigataa waajib okay expenses markaa dhigno waxaa leenahay safe aa leenahay okay safe markaa dhahna waxaa taabanaa halkii qoonta new si aan usoo sameyno akoon kaleetood expense ah okay akoonka ID-giisa waxaa ka dhigaynaa tusaalahan 99 oo kaleetood ka dhigaynaa description-ka waxaa qoraynaa akoonkaasi magaciisa ku qoraynaa tusaale anaga waxaa leenahay qarashaadka nooga baxa internet okay qarashaadka internet marka aan halkaan ka doorano account type-kan waxaa kasoo dhigaynaa expense kasoo dhigaynaa okay expense kadibna waxaa leenahay safe okay safe markaa dhahna waxaa noo samaysan laba account oo expense ah okay haddii aad ku dhufno listaan ku dhufno ujeedaa laba account expense inuu soo sameeyo midna waxaa loo yaqaanaa current expense mid kalena waxaa loo yaqaanaa qarashaadka internetka okay marka labadaas iska dhiibayna okay internetka lacagta bishan ku lahaa iska dhiibayna sidoo kaleetood korontadana waxay noo keentaa iska dhiibayna okay intee ka dhiibayna marka okay cashkeena caadiga ka dhiibayna oo gacanta ku hayno mis account-keena cashka ah oo salaam bankiga ka dhiibayna okay labada mid kaarta ka dhiib kartaa cashka si u dhiibtay ku xirantaa aniga hadaa ku dhiibna cash caadi ah ay noqonaysaa soo qodada salaam bankiga account-keena ah lacagta ugu bixina ama jeeg ugu qornay intee ka go'aysaa okay hal mar aan tuso sida loo bixinayo okay waxaa tagaynaa halkay qoran tahay list kadib waxaa kasii dooran doonaa general journal entries markaad doorto intaa umaanaysa waxaa leedahay halkay qoran tahay new markaa dhahdo halkan waxaa gelinaysaa taariikhda waxaasay dhaceen referencena haddii u jiro inta waa gelinaysaa okay general ledger account inta waxaa gelinaysaa akoonada expense inta soo gelinaysaa okay qarashaadka internetka ID-giisa waa 99 midka kaleetoodna wuxuu yahay mid kalena current expense waa ID-giisa waa 88 okay labada akoon inta soo gelinay labada akoon marka inta soo gelinay akoonka saddexaad oo lacagta ka bixinayna inta soo gelinaa makash kaayna caadi ka bixinaa mise salaam bankiga ka bixinaa okay so anaga waxaa leenahay cash keena caadi inaan ka bixino soonaa iskale okay cash on hand markaa soo doorato labada akoon oo expense wuxuu dhibida u gelinaysaa tusaale ahaan anaga waxaa dheena internetka tusaale inaan dhiibno $30 inaan dhiibno bishaan sidoo kale kiradana aan dhiibnay $20 so $30 iyo $20 ku dar meeqo waa $50 so cashkeena waxaa rabnaa inaan ku go $50 waxaan rabaa dhibidii kiradina isku mid noqdaan okay dhibid waxaa geliso iyo kiradii waxaa gelisay isku mid noqdaan balance-iga inuu noqdo 0 aragno okay
أقدر وحاربنا كاكين إنه كنت ندور كجوز سوكرات إكسبنسيين إنترنت إكسبنسيين وحاربنا إنه جلسات ندور سوكرات قرشات كرنتو وحاربنا إنه قشلات ندور أوكي سيف تانين كاشكين وأنا كنت ندور كجوال لحكنا دورنا وجرت كنت ندور دي لجرا أنا قلنا زع عشان كن سجاب بقول كنت ندور أوكي حاول مرة أقول فن السيف أقول فن سيف مرة أقول فن كلوس أسكالينا وحات بوغنينا أكونو ينسي أصلا بوغنينا ماينتينا قرينا chart of accounts kasii door doona chart of accounts markaan kasii doorno halkan ay qoran tahay list markaan doorno oo jeeda kaashkeen inaan ka go'do konton door wuxuu noqday 5950 door sidoo kale expensive koronto waxaa ka 20 door expensive internet-kan waxaa ka 30 door sidaas waxaa loo bixiyaa expensive so waxaa rabnaa expensive bixina inuu ka go'o revenue weyn waxaa tagayna halka qoran tahay reports and forms anaa kusii door doono financial statements financial statement ka sii dooran waxa sii dooran doona standard income statement double click markaa kusii okay asii leena okay waa ujeeda series kana ama revenue soo gala 10,000 dollar ah total kaas 10,000 dollar soo galay cost of goods sold waxa ka 9,000 dollar 9,000 dollar hadii aan ka jirno 10,000 waxaan noo soo hari doono cross profit oo ah 1,000 dollar faa'iideyno dudubka intaan expense la bixin karo okay expense ina isku daray okay expense 20 dollar iyo expense 10 dollar isku dar okay 50 dollar كنتم دور حاجة جرت كن دور نت إنكم كان وحويا سهل بقول كنتم دور فائدة رسمي عشان نت كان وحرجينا إن تفانتين سيلو بإكسبنسي سمر كاسنا أسكدي دوتا إن بحسن إكسبنسي وعد بس حسن رؤين اللي أظن حريبي كروحنا وخلي أنت آلي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.